waxa xaqiiqo ah gabadha muslimadda ah waxa weeyaan hadday amarka ilaahay qaadato ilaahayna ateecdo guurka ay doonayso iyo wanaagga ay doonayso iyo nolosha ay doonayso midda ugu fiican ayay ku guulaysanaysaa waa in gabadha muslimadda ah ay ogaataa gurigeeda dhismahaya hadduu ku dhismo biridallah ilaahay raalli ahaanshihiisa gabadhaasi sacaado iyo liibaan u dhimani ma ay jirto haddii gurigeedu ku dhismo bisakhatillaah ilaahay caradiisa iyo waxa weeyaan waxyaalaha maanta aan arkayno hadduu ku dhismana meeshaas iyadaa waxa weeyaan cuquubo ayaa taalla gurigaasina nolol raaxa leh ma laga helayo waxaan ogsoonnahay oo aad iyo aad u badan mafaasid badan oo la arkay oo guurka lagu arkay arrintaasina waxayba keentaba guurkii inaan la guursan oo aan lagu didaalin ee qof walba uu ka daaho waxyaalaha keenaya haweenku guurka inay ka daahaan asbaabaha ay leedahay kow waxaa ka ah addiraasa nidaamiya wax la yidhaahdo oo qofkii mashquul looga dhigay gabadhii waxay dhammaysay iskuulkii markay dhammaysay guur mar horeyba gaartay iyadoo iskuulkii aan dhammayn bay gaartay ma aynan guursanin waxaa laga dhaadhiciyey ama saaxiibadeed ama waalidkeed ka dhaadhiciyeen ama ayaduba iska dhaadhicisay ilaa jaamacad aad dhammaysid ha guursanin jaamacaddii markay dhammaysay ayaa waxaa la yidhi kuwii kaa horreeyo jaamacadda dhammeeyey master bay raadiyeen adiguna waxa weeyaan ilaa master aa qaadatid ha guursanin muddo kale ayay ka sii daahday masterkii markay qaadatay ayaa waxaa la yidhi wax ka sarreeya ay jira waa inaad PhD soo qaadatid doctoraa soo heshid nolosha rasmiga ah markaasaa gaari kartaa waxbarashada rasmiga ahna markaasaa dhammaysay markaasay mar labaad u tifaaxaydatay da'da ay ku soo dhammaysay iyo waxa weeyaan iyo xilliga ay ku soo aadayna waa xilli guurkii xilligii loogu talagalay ay ka baxday oo in badan ay dhaaftay weeye markaasna caqabad kale hor taalla nin aan sideedoo kale mustawahaas aan joogin waxa weeyaan uma qalmo mana ku qanacsana nafteedu in ay guursato ninkii mustawahaas oo kale ahaana waxaa laga yaabaa xaas iyo laba inuu leeyahay ayadii marka waxay rabtaa nin sideedoo kale shahaadada haysta waxa weeyaan reerna aan lahayn oo waxa weeyaan aan xaasas kale lahayn ayay rabtaa taasina waxay noqotay in la arkaa shay culus ayay noqotay waxay dhashay arrintaasi hooyadaasi gurigeeda inay fadhiisato xoogaa shaqaa laga yaaba meel inay ka hesho jaamacada ay wax ka dhigdhigto laakiin noloshii rasmiga ahayd ee xayaata zawjiya iyo awlaaddii iyo injaabu duriya saalixa awlaaddii saalixiinta oo maqsuudku ahaa iyo wax badan oo bulshada ay ku soo kordhin kartay hadday guursato guri ay yeelato waxay noqotay garab rarato keligeed socota ayay noqotay arrintaasi aad iyo aad bay waxay ugu noqotay guurka caqabadda kale waxa weeyaan oo ayaduna jirtaa ghalaaga iyo sicir bararka ku dhacay guurkii haddii ay gabadhii hesho wiil wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh oo wanaagsan hadday hesho ayaduna diyaar ay tahay halkan waxaa yaalla caqabad kale hortaagan caqabadaasi waalidku qayb bay ka yihiin hooyooyinka iyo aabbayaalku qayb bay ka yihiin weliba dhinaca hooyooyinka gaar ahaan gabdhuhuna qayb bay ka yihiin wiilkii waxaa lagu xirahayaa shuruud guurkan inuu u baahan yahay miisaaniyad iyo hanti aad u fara badan arooskeedu kama dhici karo meelaan hotel ahayn guri kama dhici karo arooskeeda waa in intaas oo qarasho la geliyaa boqolaal baa ka soo qayb galahaya aqalka la dhigahayo waa aqal qaali ah dahabka loo gadahayo caa'ilada iyo qoyska laga doonahayo lacagta iyo dhaqaalaha la geynahayo intaas oo qarash ah oo wiilkan dhalinyarada ah ee cafiifka ee dhowrsoon uunan awoodin wuu shaqaystaa 300-400 oo dollar oo mushaaruhu qaataa intaan hadduu guursado waxa weeyaan hadduu $1,000 iyo $2,000 ku guursado biilkiisa waa haystaa oo biilkiisa waa ku filan yahay laakiin markii la yidhi $10,000 buu guurkaani ku kacayaa goormee $10,000 ninkan dhalinyarada ah uu aruurinaya waa waqti aad iyo aad u dheer gabadhiina guurkii way ka daahday asagiina waa ka daahay labadoodii oo israba ayaa isku jeeda
habeen iyo maalin telefoon bay ku wada hadlayaan lacalla qaar badanna waxaaba dhacay inay kulan aan sharci ahayn uu dhex maray ayagoo guursugayaal ah caqabaddaa taalla awgeed in badan baan arkay dad sidaas oo kale ka cabanahaya qaar ka midii uur ku soo baxay qaar ka midii kulankii intaasoo jeer uu dhex maray laba qof oo israbto weeyaan caqabad baana halkan taalla arooskii iyo qalaagii iyo waxaas oo dhan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idin yimaado qof akhlaaqdiisa iyo diinkiisa aad ku qanacsan tihiin u guuriya ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaynan sidaas samaynin fitno ayaa dhacaysa markii labadii qof oo fiicnaa la isku diiday ayaa waxaa dhacay fasaad iyo akhlaaq xumo ayaa dhacday bal waxaa dhacay hooyooyin sabab u ahaa arrinta iyada ah in waagu ugu bariyey gabadhii oo wallaca oo dariiq aan sharci ahayn wallac ku noqotay wiilka laftigiisuna ay og tahay inay wiilkan la socotay caqabadda hor taallana ay hooyadu sabab u ahayd maalin baa hooya ii timid waxay tidhi wiil baa gabadhaydii uureeyey isagiina ma inkirsana waa ii yimid anaa markii hore waxaan idhi soo diyaargarow intaasaan sugahayay shuruudo badan baa loo diray zine ayaa dhacday gabadhii uur bay yeelatay markay yeelatay weydiisay waa wiilkii bay tidhi asagiina waa qirtay oo ma unan inkirin marka waxa weeyaan mafaasidda intaa leeg sabab waxa u noqonahaya caqabadaha la dhigahayo ee qalaaga ah ee la hor dhigahayo waxaa dhacda oo kale oo iyadana muhiim ah in la ogaado meherka waayahan dambe waxa weeyaan faruhu ka baxay 10,000 oo dollar qaar baa lagu meheriyaa waxa weeyaan 100 gram baa aad u fara badan 200 oo gram waa gaaray waxa weeyaan taasina waxa weeyaan dariiqa iyo caqabadaha hor taagan bay ka mid tahay waxaa laga yaabaa gabadhu inay tiraahdo goobta iiga sheeg anaa ku cafinahaya magaca un baan ka rabaa qacda hore un baan ka rabaa dan kale kamalihi taasina wax sax ma hadhowtana laga yaabo inay uga baxdo ballantaas oo ay tiraahdo xoolahaygii anigu waa kaa rabaa way dhacdaa aad bay u badan tahay arrinta iyadaana waxa weeyaan mafaasiday ka mid tahay waxyaalaha hor taagan waxaa ka mid ah guurka oo dhibaatooyinkiisa ah waxa weeyaan qofka marka la dooranayo diin lagu dooran mahayo waxaa laga fiirinayaa qofkaani dhaqaale muxuu haystaa magac iyo maamuus gooniya muxuu leeyahay laakiin qofkan hadduu yahay qof ahlu diin ah oo diin leh oo gabadhiisa biilan kara la aqbali mahayo doorasho badan baa la gelayaa waxaa la fiirinayaa ciddaani maxay lacag leeyihiin ninkaani muxuu lacag leeyahay muxuu dhaqaale leeyahay gurigaana uma baahna dhaqaalo badan wuxuu u baahan yahay iimaan iyo is-aaminaad iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax yarka oo la haysto ilaahay baa barakaynaya waxa weeyaan loo tala saarto oo horay loo gala ayuu u baahan yahay walidaalika qofka guursanaya waxa weeyaan doonaya inuu dhowrsoonaado nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu tilmaamay 3 qolo ilaahay baa ballan qaaday inuu u kaalmeeyo waxaa ka mid ah wanaakixu alladii yuriidu alcafaaf qofka guursanayo doonaya inuu dhowrsoonaado adiga marka hadduu kuu yimaado nin doonaya inuu dhowrsoonaado gabadhaada kaa soo doono oo qof ilaahay ka baqaya uu yahay ilaahay baa garab taagan oo u kaalmaynahaya ilaahay baa micigiisa ah meel gabadhaada aa ku aamini lahayd oo ka fiicani ma ay jirto meel gabadhaada aa ku aamini lahayd qof ilaahayba u kaalmaynahayo oo ka fiicani ma ay jirto laakiin haddii aad shuruuddaa ku xirtid waxa weeyaan guurkaasi ma sii soconayo arrinka kale oo muhiimka waxa weeye